ومهدسنتهين السلام عليكم. آدي آذان ugu faraxsanahay in caawa aan waqti idin la qaato waxaan u mahad celinayaa dhamaan walaalaheen hadlay waxaan si gaar ahaan ugu mahad celinayaa Munira 2 weeks ago ay igu imaatay Washington DC xafiiskayga igu soo booqatay aadaan ugu farxay in aan arko qof Soomaali oo tartamaya ama guushiisa la hubo oo reer Minnesota ahaan waxaan u maleynayaa hadda anaga reer Minnesota hadii aan nahay meel kasta aan fiirino waxaa joogo qof Soomaali ah oo na matalo hadii aan ka fikirno school boardka aan ku soo bilownay walaalkeen Ilaahay u naxariistay Xuseen Samatar uu noogu fadhin jiray wuxuu ahaa qofkii anagoo dhan jid weyn noo furay oo na tusiyay inaan tartami karno isku tashan karno anaga waxaa ku xigay Keith Ellison oo aan u dirsanay Congress oo muslimnimo noo matalayay waxaa noogu xigay walaalkeen Cabdi Warsame oo City Councilka qofkii ugu horeeyay noqday maanta waxaan haysanaa Aisha oo muslimad ah oo hadda hadashay reer Pakistani waaye waa gabar yar 25 sano xataa maynan gaarin aniga campaign-kayga ay manager-ka ahaan jirtay hadda waa City Council woman waxaa kaloo to City Council-ka noo fadhiyo Jamaal Cusmaan oo wiil Soomaali ah aniga markii aan u tartamayay state representative dadka badanaa maynan aaminsaneen waxay dhihi jireen waqtiga maxaa iskaga dhuminaysaa ilhaanay ma ku suurtagelayso waqtiga maxaa iskaga dhuminaysaa ciyaalkaaga iska korso ilmo yar yar haysataa walaalay ilmahaaga iska korso waan ogaay in ay suurtageli karto idinkoo dhanna waad aaminteen waad i garab istaagteen ilaahayna guul uu nagu siiyay aniga in aan fursadaasaytii aan helo alxamdulillah maalintii aan go'aan ku gaaray in aan Congress u tartamo Keith Ellison uu yiri Attorney General aan u ordaya waxaan xasuustaa Soomaali badan qaar qolkan ku jiro oo dhahayo miro guntaada kuugu jiro mid gate saaran looma daadiyo kulligood waxay dhaheen walaalayaal oo dhageysta Keithna kursigiisa ha ku fadhiyo Congress-kiisa naga joogo adigana meeshaada fadhiyo state representative noo ahaaw hal kursi aan haysanaa kaasna hal kursi aan haysanaa yaanan beelin alxamdulillah ilaahay go'aan gooni uu leeyahay annaga waxbaan ku tashanaa laakiin ilaahay taladiisa waa mid gooni ah ilaahay wuxuu ogaa in aniga ay iga dambeyn doonaan Hodan Xasan oo state representative noo ah in Maxamuud Nuur uu iga dambeyn doono in Umar Faata aan doono in alxamdulillah maanta saddexdoodii oo kursigoodii ku fadhiyo laba kaleeta aan ku darsanayno Samakaab iyo Zainab ay socdaan taasna waxba maanan ku weynina waxba noogu saa'iideeyay ilaan anigana korkaas waa ku raayay Keithna Attorney General uu noo noqday marka maanta aan isweydiino sababta annaga codkeeni qalqal ugu jiro sababta Keith Ellison uu maanta Soomaali u baryaayo uu Soomaali u dhahaayo kaale ii soo baxa sidii aniga kursiga aan ku fadhiyo aan idinku sii fadhiyo idinku matalo qofka kaliya muslim ah Minnesota kaliya aanan ahayn waa meel kasta America hal qof muslim Attorney General ka ah waa muslimka jagada ugu weyn America ku fadhiyo marka ma ahabo inuu Keithna baryo annaga waxay ahayd in saf dheer aan galno oo annaga aan Keith dhahno goormee ku soo codeyn karnaa intee mari karnaa yaa register gareyn karnaa meeqa lacag u baahan tahay Keith maanta inuu lacag dadka baryo Keith maanta inuu cod baryo Soomaali iyo muslim uu ka baryo waa wax calool xumo ah aan loo dul qaadan karin inta kaliya intaas ay ku suurta gashayna waxa waaye dad kastoo aniga mana idinka xishoonahay canyaasiin ah waxa laga soo dhaadhacsiiyay in annaga dadkii muslimkana matalayay oo aan rafaadka ilaahay ogaa aan u soo galnay in maanta aan helno Minnesota inay noqoto
statekii dadkoo dhan tusaale u noqday maanta annagii inaan noqono dad tuugtamaayo dad laga dhaadhacsiin karo dad walaalkood ah ku jinsi ah ku diin ah oo inta ilaahay ogaay rafaad u soo maray oo noloshoodii badbaad u laa oo maalin ilaahay keen lacaynaayo oo joornaal kasta xumaantooda lagu soo qoraayo daraadeen muslimnimo jinsi ahaan ay nagu dafaacayaan in maanta annagana laga dhaadhacsiiyo kuwan aanoo daran say ku suurtageli kartaa aniga adaan kugu abtirsadaa turjubaan miyay u baahan tihiid marka aniga ila hadlaysid hadda soomaaligayga aad ugu sii fiicnaadaybo aniga turjubaanayga ma baahan tihiid fiiri maanta jidkaas haddaa maraysid aniga aan kaa soo horbaxo wixii aad rabtid oo calooshaada ku jiraa ii sheegan kartaa maxamuud hadduu kaa soo horbaxo wixii aad rabtid oo calooshaada ku jiraa u sheegan kartaa hodan hadday kaa soo horbaxdo wixii aad rabtid oo calooshaada ku jiraa u sheegan kartaa ma haysataa dad kaleeto oo saas kuu yeeli karo qof kasta waa inaad turjubaan u raadsatid fiiri 100 republicaanay wataan 100 republicaanay wataan oo waxay ku leeyihiin kaale u coday turjubaanay soo ijaarteen oo Soomaaliya oo annaga nagu abtirsado marka bari marka adiga wax ka doonaysid turjubaan u baahan tahay ma annagii oo haysano qof annaga aan u tagi karno oo codkeena ugu hadli karno afkeena ugu hadli karno oo danaheena already og ma naga dhacsiina maanta qof kale ku bedel oo qofkaaga turjubaanayo ما أنا لقنا دعسينا ما أنت قف كله كبدل أو أبري يسيد أو أده يسيد شركة غير أو كله يسيد أنا قوضن ثبلو أنك إماضي ساني سان واي فارهيجا ببكانا قباع يالكي سكول سانا لو دباب بكوس قماري حرتا قبارك أنكو في السراء محا كهدلينا محا كهدلينا مينيابوليس عيالكين سكول كايدكتان مانتا وحنا هيسانينا لبا سكول بورد ممبر هدي سكول iyo ciyaalkaaga iyo waxa laga dhaadhacsiina lagu dhahayo laba qof ah ku joogo oo afkaaga ugu hadli kartid oo hooyo iyo aabe ah Abdul wiilashiisa ayaa dhawayta door albaaba ila garaacay wiilkayga way gihiin uma baahan tihid qof inuu kaaga turjubaano Abdul markii uu ku fadhiyo city councilka min school boardka Somaha il badan ay haay muxuu il badan yahay waay ما أنا هذا صف صومالي إلى ترتماي كيف قدوا ولا ترتماي نكلوا مسلمين أو صومالي وفهمينا وحقر قرطن وإسجيجيدن جرني أوكي واي كاس لكن وحاس كمان لوينو وحن كهاد لوينا قول أن قارني أنك أو الدنيا أو تم تصالح إنه أركان أدمان تربتين إلى دادسين ما حدو دادين يسين ضاع واحد إذن كذا دعسينويو سؤال بدر أجردت كمركي ويديانا رباك ستوير إنا إذن تابتو maxay dadkan idin qabteen su'aashaasaytii waa su'aal kistoo jahwareersan waxayna u jahwareersan tahay ma qofka waxba uu ku qabtay adaa og mase ma ogtihid fiiriya aniga shaqaalaan ahay city councilka aan u shaqayn jiray meeqa qolkan ku jirto xasuusato 7 sano ka hor in maqaayadaheena loo ogolaaday ramadaanka intii ay rabaan habeenkii inay furnaadaan kulligiina xasuusatiin uma maleynaa dadka gadaal fadhiyo wax oo madaxooda luxooy ma arkooy ma xasuustiin soo maaha say ku suurta gashay waxay ku suurta gashay waxay Keith, got the mess there. Hold up, Keith, I gotta finish this. So, to the Masara Kor, Meheku Surta Gashay, Gabar Muslimat ka shaqaynaysay. Wiilal Muslimiin oo Soomaali ay mid waxay dhaheen abaaye bisha Ramadaanka lacag badan ma suubino. Soomaha maalintii oo dhan waan xirannahay. habeenkii intii aan furnaan lahayn way nagu xiran tahay especially meelaha siidaro kale markii ay maqaayad nooga furan tahay 10 o'clock ka badan ma furnaan karno ma noo fursameyn kartaa sidii aan ku heli lahayn in bishaas la suubiyo
wiilkii aan u shaqaynayay Andrew Johnson la dhahayo ordinance-ga qoray waan pass garaynay maqaayadaheena ramadaanka intii ay rabaan ay furnaan karaan intii iyaga ay rabaan maanta aadaana ku yeerayo 12 sano ka hor state-ka Minnesota maali ilaahay keen waxa laga qaylin jiray shariiyo loo maanta aadaana dhageysatiin reer Siidar saad ku dhageysatiin aadaankaas ma qof waxa idin keenay aan Soomaali ahayn oo Muslim ahayn maya Jamaal Cusmaan idin keenay city council-koodii kugu fadhiya fiiri okay sug waa dhamaysanaya building public housing yaalkana aad degantihiin ayaan dhaxdaas dada ku dhintay ma xasuusatiin markay dadka ku dhinteen maxaa la ogaaday sababtay u dhinteen waxay ahayd sprinkler bildimada ma lahayn Somaha $2 million aan keenay aniga bildimada oo dhan hadda sprinkler la gelinooya marka dhahdeen maxaa noo qabateen isweydiya ma aniga ogeyn waxa la qabtay mase wax ma lii qabanooyo Keith Ellison Congress markii uu tagay wuxuu ahay qofkii Muslim ugu horeeyay oo namatalo hiirinyaalka markii la suubiyo meeshuu soo fadhiisan jiray oo la dhahay annaga dhan terrorist aan nahay wuxuu xasuusin jiray dadka in aan nahay annaga shaqaale inaan nahay aabbo hooyo dad ka mid ah wadankan inaan nahay waa ooyay TV-ga oo kaamirooyinka oo dhan fiirinayaan uu ilmeeyay asoo qof weyn ah muxuu ilmeeyay dibkeenu og yahay annaga dareenka adiga aad dareemaysid uu ku dareemaya because asiga waa qof Muslim ah oo ilmo wadankan ku korsanayo marka maanta ha ogolaanina igara leeyahay hadaan qiiliyayna ha ogolaanina in li idinka dhaadhacsiyo inta dadoo Muslim ah haysatiin oo habeen iyo maalin ku soo kaco kuna seexdo in idinka ay idin difaacaan in idinka waxay idin soo dhiciyaan in ciyaalkiin ay ka shaqeeyaan schools ay ku heli lahaayeen in idinka aan discrimination iyo midabta koor la idinku suubin in idinka airboryaalka aan la idinku qabsanin idinkaan idin dadaalnaa anaga wax kale uguma fadhino booska aan ku fadhino marka haddii aadan ku fikiraynin oo ama aad taqaanid qof aan ku fikiraynin inuu Keith u codeynin waxaan u baahanahay intii aan hadda idin sheegay in aad u sheegtiin in aad gidlishiin in aad ka dhaadhacsiin wax kala dadkan in laga dhaadhacsiiyay in la rabo iyaga in guushi ay gaareen iyo waxyaalihii badanaa ay ku tashanayeen laga qaado maanta meesha aan joogno meel aan ka laaban karna ma aha waa meel aan u baahannahay hore inaan u sii baxno in aan idinku tashana u baahannahay dadkiinaan qolka ku jiro